السلام عليكم وانتجرال قيبتين التونات. اوكي عشركينا maanta wuxuu ku saabsan integral qaybta jajabka. Okay qaybta jajabka. Okay haddii aan ku dhaho example-keena waxaa soo qaad sidan. haddii ku dhaho integral ku samee x lagu dara hal loo qaybi 4 dx maxaa sameynay sida ugu fudud aad samayn kartid waxaa waaye adigoo kala qaaday equation-kan u jeedid integralkan waa sii fududeene 4 waxay u qaybsantaa x waxaa u qaybsantaa 4 dx lagu daray integral hal waxaa u qaybinaya 4 dx. okay tan way iska fududahay integralka x loo qaybay 4 dx jawaabteeda waxaa waaye hal loo qaybay 4 lagu dhuftay hal loo qaybay 2 x square. okay taas waa dhameynay jawaabtu waa hal loo qaybay 8 x square. midda kalena waa maxay midda kalena waa hal loo qaybay 4 dx jawaabtu waxaa waaye hal loo qaybay 4 x plus plus c waa dhigi kartaa c2 xaggaana c1 waa dhigi kartaa. marka muhiimad way iska fududahay cashirkan laakiin example-keena maanta wuxuu ku saabsan yahay haddii aan ku dhaho cashirkan ka shaqee hal loo qaybiyey x lagu daray hal loo qaybiyey x lagu daray hal dx saa ugu shaqey lahayd waa inaan isticmaalno 3 cashir ka hor waxaa dhigaheena waxaa daa xasuustay substitutioneed. marka haddii u dhahdid x lagu dara hal du dx waxa waayay adigoo derivation ku sameynayo u oo adigoo xigsanayo x taasi waa hal sooma x lagu dara hal haddaad derivation ku samaysid waa hal. marka du waxa waayay du dx waa isku meesha. marka haddii aan bedelo tan way dhib badantaa sida loogu shaqeeyo laakiin wax fududaa ka dhigana haddii aad dhahdo hal loo qaybiyey u du. okay waa xasuustaa hal integral hal loo qaybiyey x dx inay ahayd lnx waa xasuustaa soo ma. okay tan waxay noqonaya markaas lnu plus c. substitution-keena haddaan sii dhammeeno waxaa helaynaa lnu waxay ahayd x lagu dara hal plus c taasoo jawaabta. horaa u socono example-keena labaad wuxuu noqon karaa firi. example-keena labaad wuxuu noqon karaa adigoo dhahday integral ku samee hal loo qaybiyey x lagu daray hal lagu dhuftay x laga jara hal. okay dx maxaa sameyn lahayd marka cashirkan aad u adag yahay waa inaan isticmaalno qaacido cusub. marka kan waa inaa wax fudud ka dhigno sidaaba uga shaqeyna. okay haddii aan dhaho hal loo qaybiyey haddii aan dhaho x lagu dara hal x laga jara hal qaybtan waxay la mid tahay anigoo dhahay a loo qaybiyey x lagu dara hal lagu daray ba loo qaybiyey x laga jara hal. a iyo ba waa laba tiro oo tirooyinkay rabaan ay noqon karaan marka waa inaan helno labadaas tiro. marka qaybtan
maxay uga duwan tahay qaybtan waa qayb aad u fudud oo haddii aad integration ku samaysid waxaa heli kartaa lnx logarithmic ee noqone bal aa helno aiba kan haddii aan sii wado haddii aa ku dhufto x labada dhinac kan haddaa labadan dhinac kor iyo hoos ku dhufto qaybtaanna kor iyo hoos ku dhufto waxaa iisoo baxaa a x laga jara hal lagu daray ba x lagu daray hal aa soo baxayso waxaan u qaybinaa x lagu daray hal oo lagu dhuftay x laga jara hal okay marka waxaan si fiican u fududeeyo aan soo qaato hoosaa keensaday qaybtan kale okay markaas waxaa xaq u leeyahay aan samayn karaa qaybtan inaan ku tirtiro qaybtan iyo qaybtan inay isku baxdo meesha waxaa iigu soo hera oo keliya waxaa waa hal wuxuu la mid yahay a x laga jara hal lagu dara ba x lagu daray hal marka muhiimaddeeda waxaa waa a iyo ba inaan helo marka waa inaan isticmaalnaa qaacido cusub waxaan rabnaa a iyo ba inaan helno waxaa ku heli karnaa hal si haddii aad dhaho x waxay la mid tahay laga jara hal maxaa iisoo baxa waxay soo baxa hal waxay la mid tahay a laga jara hal xaggan lagu daray ba laga jara hal lagu dara hal marka qaybtan eberay noqotay jawaabta waxay noqonaya markaas laga jara hal laba a a'da waxay noqonaya hal negative hal loo qaybiyo labo a'da waxay noqotay negative hal loo qaybiyo labo okay haddii aad dhaho x waxay la mid tahay hal maxaa ii soo baxayo inta waxaa iigu soo baxaa lagu dara hal laga jara hal lagu daray ba lagu dara hal lagu dara hal okay haddana inta eber ii noqoto marka labadooda inaa eber ka kala dhigtid waaye jawaabta waxaa ii soo baxaysa markaas eber lagu daray labo ba oo lamida ba waxay la mid tahay markaas hal loo qaybi labo waxaa jiro qaacidooyin badan oo siyaabo kala duwan loogu shaqey karo laakiin x waxay noqon kartaa tiraday rabto marka ana hadda waa fududaystay intaa eber ka dhigay xaggan macnaha kan kale eber ka dhigaysaa mid kale ugu shaqeeyo sidaa rabtida ugu shaqey kartaa okay ama qaacidadan waa isticmaali kartaa marka a'da waxay noqotay negative hal loo qaybi labo ba'dana waxay noqotay hal loo qaybi labo haddaa hore u xasuusateed x laga jara hal x lagu dara hal waxay la mid ahayd a loo qaybiyey x laga jara hal lagu dara ba x lagu dara hal ama waa isdib mariyey waa fiiri karaa okay waa isdib mariyey saanay ahayd kan saan okay marka jawaabteena waxaa waaye marka a'da xaggan gelinaa taasi waxay la mid tahay negative hal loo qaybi labo lagu dhuftay
x lagu dara hal lagu dara hal loo qaybiyo labo ugu dhuftay x laga jara hal. Okay, markii aad dhamaysid sheekadan integrationka waxaa xasuustaa integrationka wuxuu ahaay x lagu dara hal x laga jara hal dx kaasi wuxuu la mid waxay isla mid yihiin adoo dhahday integral negative hal loo qaybiyo labo x lagu dara hal dx lagu daray integral hal loo qaybiyo labo x laga jara hal dx. markaad integrationka samaysadna waxaa hele haddaa hore u xasuusatid waxaa hele lnu macnaha lny tan negative hal loo qaybiyo labo lagu dhuftay ln x lagu dara hal lagu dara hal loo qaybiyo labo ln x laga jara hal plus c. jawaabta saasay noqotay marka videoga saa u fahantid waa ku cesho kartaa exampleka labaad marka video dambaa samayn doonaa oo si fiican u sii sharaxi doona insha allah. maanta videogeena halaas ku egahay bilaa